بسم الله الرحمن الرحيم. madaxweynayaashii hore senatarada iyo muxuu ahaay xildhibaanada doqowdii hore gobolka Banaadir uu hormoodku ka yahay Cali Ugaas Cabdulle wasiirada sharafta leh la taliyayaasha duubabka oo sida la sheegay shirkan u ahaa saldhig ra'iisul wasaarihii hore علي محمد جدي iyo dhamaan marti sharafta ganacsatada haweenka aqoon-yahanka dhamaan qaybaha bulshada iyo madaxweynaha maantay waqtiga noo soo huray Maxamed Cabdi Waare oo ah madaxweynaha Hirshabeelle oo aan isleeyahay waxyaabaha muduloodka ka hadlaysan ayuu saldhig u yahay oo aan leenahay Hirshabeelle loo socdo la dhisi rabo in dadkaana taladooda kama maarmo waxaan isleeyahay waa soo dhaweynaynaa isagana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaas kadib walaalayaal qowmiyadan mudulood waa qowmiyad taariikh leh sida aad ogtihiin markaan eegno xilliyadii isticmaalka siday ula macaamileen inaan dhulka ay deganaayeen isticmaal soo gelin inaan isku daygii beelaha Soomaaliyeed dhul ballaarsiga ah oo uusan soo gelin in marxaladii gobonnimadana runtii ay ka qaateen door shariif ah waan ogeynay waad garan kartaan geesiyaashii u soo halgamay xilligii gobonnimada ay ugu horeeyeen saddexdii SYL Maxamed Cali Nuur Maxamed Faarax Hilowle iyo Ismaan Geedi Raag ay ugu horeeyeen dan waxaa ku xigay Aadan Cabdulle oo 54 noqday baarlamaankii daaqiliyadan u noqday gudoomiye 60kiina noqday madaxweynihii jamhuuriyadda ugu horeysay dalka waxaa ku xigay golihii sare oo 3 sargaal aan ku lahayn 3 generaal aan ku lahayn generaal Xuseen Kulmiye Afrax generaal Salaad Gabayre generaal Axmed Maxamuud Cadde waxaa noogu xigay kacdoonkii ومدحوينا علي مهدي محمد وشركة ما تفضي هرسيدنا كا أيا أسقنا نوجو حجي وعكو حجي علي محمد جدي والرئيس وزراء الله مجعابي ورنتي يسقون الدور كقاطي دهنتي سومالي دا وعن نوجو حجي نور حسن حسين نور عدي وأس الله ونحرسته يسقنا وأنا أدو جلالها إن فاتحة عمرنا إن إلهي جنة كورابيو وها ندور شريفة كقاتي حلي أدقنا سومري سوالنا كلبت باديو وهاي سجنا وحنا وجه شريف شيخ أحمد وهذا قوابت مدحويناها وحنا وجه حس الشيخ محمود ونوجدن بيوم مدحويناها ضد كاس هاليدا مرك الله في ريهر سوماليات أيان واجلينا sidaas daraadeed beelaha halka ku kulansanay magacoodu yahay mudulood waxay leeyihiin waxay degaan 4 state marka laga reebo Puntland marka laga reebo 4 state oo kale way degaan xuquuqdoodina tistoosa uma helino waxba ka maqan sidoo kale intaas kadib waxaan rabaa inaan ajandaha abaaro oo ah muhiim ah ajandaha shirka inaan abaaraan rabaa oo ah ujeedada shirka loo qabtay koow in la helo midnimo mudulood oo dhan kasta ah lagana dhaxelo beelaha ku abtirsada mudulood in cadowga laga xoreeyo deegaanada beesha guud ahaan iyo dalka laguna soo dabaalo amni iyo xasilooni si loo baahiyo dawladnimada qodobka saddexaad in la abaabulo lana dhiso maamul goboleedka gobolka Banaadir State saabkiinu xoog ma leh marka dareenkiina iyo maahiya baliis qodobka shanaad in la horumariyo lana baahiyo dhammaan adeegyada bulshada ay u baahan tahay ee deegaanada beelweynta mudulood qodobka lixaad in la dhiso gole siyaasadeed
iyo horumarineed ee beeshaani ku midaysan tahay qodobka shanaad in la hagaajiyo ciladaha beelweyntu ay leedahay beelaha Soomaaliyeed ayna horseed u noqoto barnaamijyada dib u heshiisiinta ee dhaxmara Soomaaliya oo dhan muduladu waxaan rabnaa sida hore loo sheegay inay u noqdaan horseed u noqdaan hawiye u noqdaan Soomaali u noqdaan ay halka iyaga gogoshiye inay roolka gogosha inay qaataan oo ay gogosha qaataan ayaan rabnaa ajanduhu 6daas qodob ayuu ka kooban yahay waxaan leeyahay martida sharafta leh ee halka isugu timiday runtii waa Yuusufa sheegay gudoomiyaha sheegay fara isku fiiq waxba ma tirayo waxaanu rabnaa inaanu madowno oo aanu ka madowno xooga oo aanu ka madowno xoolaha oo aanu ka madowno garashada oo aanu ka madowno hoggaanka ayaanu rabnaa maanta lama kala maqna qaybaha bulshada ee mudulood way wada joogaan waxaana isleeyahay maanta looma kala maqna waa maalin mudan in maanta mudulood shirkan wax isaga ogaado oo la naaloodo waad ogtihiin dadka diaspora halka looga mahad celinayay ee coronavirus guryaha ugu xirxiran ee iyagoo caruurtooda caanaha ay siinayaan soo yaboohay si mudulood loo samata bixiyo maanta meel ay tegi karaan oo ay dalxiis u imaan karaan ma jirto magaalo madaxduba ha ugu horeyse marka walaalayaal waxaan soo dhaweynaynaa martida sharafta leh halka isugu timiday oo siyaasiyiintu horseedka u yihiin duubabka dhaqanka ee muduloodna ay ku xigaan waxaanu leenahay aanu samaysana wax aanu wada leenahay oo aanu wada difaacayno oo aan qof lagu riixayn oo aan qof laga riixanayn oo aan wada leenahay aanu samaysano wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh